ما شاء الله تبارك الله يعن واكنهي يعن علوشي جي وحكفوت إلهي مؤمن مركا maanta sidaa u jeedaan cunkeena sidaas quruxda badan ayuu ku soo baxay maasha Allah tabarakallah soft waaye la socosho wacan oo wanaagsan asxaabteedii السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أخيارتا ميل walba adduunka aad ka joogtaan waa idin salaamay waa markale walaashiin Faadimo Cali ku soo dhawaada maanta iyo muuqaal cusub oo xiiso leh dhammaantiina waxaan idin leeyahay please haddaad ka cusub tahay channelkan subscribe ii saar haddaa hore ila joogto like comment ii soo dhis dhiirigelin ayay ii tahay please 2000 ayuu ku sii dhow yahay waxaan idin ka codsanayaa inaad bilooyinkan gudihiisa intaan ramadaanka la gaarin barakadiisa khayrkiisa Allaahna soo aadiyo inaa 2000 ii buuxi doontaan haddii Ilaahay yiraahdo maanta meeshan waxaa idinku wadaa macmacaan cun iyo calaanji weligiin ma cunteen meeshan sida u jeedaan maanta cun ayaan ka wadaa iga faa'iideysta asxaab badan ayaa mar walba waxay dhahdaa macmacaanka sida xalwada oo kale iyo cunko kale macmacaanada noo soo sameey ee noo soo geli fiidiyoyada insha Allah mar walba waxaan jeclaa waxaa idinka jeceshahay inaan nii soo sameeyo haddii Ilaahay yiraahdo codsigiina waa ku mahadsantihiin sababtoo ah anigana dhiirigelin ayay ii tahay meesha sida u jeedin waxaan ku haysanaa ka faa'iideyso wacan oo wanaagsan haddaad hore u aqoon waxaad leedahay cun wax ka fudud adduunka ma jirabo sida meeshaas u jeedaan 3 bakeeri oo bur ayaan ku soo shubanayaa 3 bakeeri oo bur ah isnaad qalada 3 bakeeri oo bur ayaan meeshaas ku soo shubanayaa maasha Allah tabarakallah sidoo ku soo bixi doono iyo inta aan ku sheegi doono ka faa'iideyso adigoo filimkaaga fiirsanaya adigoo goobtaada meel alla meesha joogtid haddaa rabtid aan ku dhaamiiskaaga qadada fadhi haddaa rabtid dhaladaada fadhi waa adigoo waxa arkaysaa ku dhaa 2 daqiiqo ku sameeyay oodna isleedahay maasha Allah tabarakallah sidoo ku soo baxay uma maleysan kartid qurux maasha Allah soft yaa qaxwada cabooga ku daalaysan ku dhahay igu wad isku dhaha meeshan sida u jeegtiin 3 bakeeri oo bur ah iyo 1 bakeeri oo sokor ah sokortan waa shiidaysaa waa weyn dhan lama rabo sokortu waa inay ahaataa budo hadda sida u jeedaa markaan ku shubaay 1 bakeeri ayay ahayd hadda markaan cabiraayn waa idin tusaaya waxay noqonaysaa waayo budo markay ay tahay maxaa la dhahay oo la shiido xabad waa weyn waaye 1 bakeeri waa laakiin markii la shiido waxay ku soo baxaysaa 1 bakeeri iyo wax yar ay ku soo baxaysaa subxaanallah anaa bal yaab naftirkii waxaan dhahay sokorta iyadana gadaal meebay ka dhalatay marka sida u jeedaan 1 bakeeri afka ayaan ka buuxiyay waxaan ku shubayaa kastiireed oo idin sheegaya hadda ayaan ku shubaa waayo sokorta markay budo noqoto iyo markay caadiga tahay isku cabir ma ahan marka insha Allah taala biidnillah kareem ka faa'iideyso 3 galaas oo bakeeri 3 bakeeri oo bur ah iyo 1 bakeeri oo sokor shiidan ah sokorta markay waaweyn tahay qurux kuma soo baxay hataa gacanta ma ku qabsamayo meeshaasna sida u jeedaan waxaan ku soo shubanayaa bakeeri saliid ah sokor ma ku taabanaysid caano ma ku taabanaysid aan dhahay sokor aan dhigna caano ma ku taabanaysid waxyaabo kale ma ku taabanaysid intaan fiidiyooga duubaa saliidda taa dhinaca iga daadatay iga raana naqad sida u jeedin biyo dhan ma ku taabanaysid caano ma ku daraysid ukun ma ku daraysid waa 3 bakeeri oo sokor oo bur ah iyo 1 bakeeri oo sokor ah iyo 1 bakeeri oo saliidana ma ku wada banaynaysid maanta dhankaskiisa oo darsanaysa waa fiirinaysa inuu saas jarraqas ahaada la rabaa saas oo ahaado cunka dadka hal nooc ay u sameeyaan aniga laakiin 3 nooc ayaan u soo sameeyay marka waxaan rabaa 3daas nooc sida u sameeyay inaad ka faa'iideysataan hadda hore oo aragteena waa maasha Allah tabarakallah soo dhaweeyay hadda aragteen oo idinku cusub yahay please dhiirigelinta adiga ayaan ka sugayaa insha Allah taala biidnillah kareem marka sida oo jeedaan hadda wuu noo diyaarsan yahay bas waxaa leenoo dhiman inaan tutusino sida oo jeedaan xabadkii ugu horeeyay ayaa soo dhacay meeshaas ayuu nagu jiraa waxaan ku sameeyay waa ku kuusay waana yaryareeyay hadda rabtid fiina waa ka dhigi kartaa xoogaa yar hadda rabtidna waa adiga maxaa la dhahayay gacantaada inta fartaada leeg waad ka adkeysi kartaa waxaan ka wadaa cabirka farkeetadaas yar ayaan ku sameeyay علشان waxaan ka wadaa daarad burbur waa ka dhigi kartaa daarad khafiif waa ka dhigi kartaa cun si walba u sameeyay asaga soft leh waa sababtoo ah saliida lagu qas wax kale lagu ma qasin waa saliidin waa isku ogtiin amalayna da wax walba ku darsatid dhaxda soft ayay ka dhigaysaa maasha Allah tabarakallah sidaas ayuu noogu soo baxay cunkeen waa 3 qaybood midna waxaan ka dhigay kaas midna sidaa ayaa jag u siiyay
maasha allah quruxdaas ayuu noogu soo baxay waxaasoo dhan farkeetadaasaa keentay iyo maskaxdeeda yareed oo walaashiina Faadimo marka ka faa'iidaysi wacan oo wanaagsan midkii kalena waa kana weel yar ayaan sacfaraan kusoo qasanayaa sacfaraankaas ayaan dhexda dhakac ugu siinaa waayo sacfaraankaas qurux ayuu u siiyaa cun haddaa aragtid quruxdiisa waa sacfaraanka markaad dhexda ka gelgelisid marka maasha allah sidaa wada jeedaan akhyaarey quruxdaas ayuu kusoo baxay yaa walaashiina maanta waxaa u maleynayaa like iyo commentiga inaad kasoo shidi doontiin oo asxaab fara badan oo u baahan yihiin cun inay qastaan cawada kaliya inay dhag ka sii doonaan haddii ilaah yiraahdo waxaa jira qaxwo yar haddaad ku siisidaan ku dhahay maasha allah lagama sheekeyn karo yaa iyo doorshadiisa xaluudiisa usoo raacisid xaluuna hadda ka hor waa idiin soo geliyey haddana asxaab kale ayaa iga soo codsanaysa marka insha allahu tacaala biidnillahi alkariim ciid ayaa noo soo dhow iyo ramadaan ilaahay samee saacada allah nagu gaarsiiyo iyo cunkeena sidaas quruxda badan ayuu noogu soo baxay qaybna waa tana qaybta sharaxaadana xagga ayay taalaa marka maxaa isdhihi kartiine gadaashiisa idin tusaa waxaa la ilaa fool ku taal ma la dhihi jirinoo bur yaraa saxanka ku biibsanaysaa saliid yar bas waana kaaga dhigaayo tartiibkaas waa kaas dhaxdana kama guban korna kama guban haddaa rabto aniga cadaankaana jeclaa markuu korkaan saan cadaan uu yahay oo dabka la tuso oo qurux yahay kan waa ujeediina umaleyna kalarkaan kusoo baxay maasha allah dabkaan u deeyey marka asxaabee ka faa'iidaysi wacan oo wanaagsan mar walba waxaan jeclaa wax alla waxaad iga soo codsataan waxaa idinka raali iga tihiin inaan insha allahu tacaala inaan idin soo sameeyo mar walbo idinkana waxaad igu raaligelisaan inaad 200 i gaarsiisaan 200 aan dhahay bal 200 aad gaarsiisa insha Allah 200 waa gaari doona hadii ilaahay ira gacantiina mar walba ha shaqeysa ayaa idin leeyahay waadna ku maadsantiin cunkeena sidaas qurux badan ayuu ku soo baxay inta aan ku kulmi doono fiidiyooyin ka qurux badan oo la mid ah waxaan idin leeyahay bash iyo barwaaqo ku noolaada ramadaanka ayaa noo soo dhow khayrkiis barakadiisa Allah na siiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh